السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا أصحاب halkan iga daawanaysa meel walba oo joogtaan iyo si walba oo muuqaalkaygu marka idin soo gaariyaba muuqaalkan dhowr arrimood oo kala duwan ayaan doonayaa inaan ku fiiriyo marka hore waxaan doonayaa bal inaan idin la wadaago masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa iyo qorshaha halis ah oo Israa'iil ay masaajidkani la dabacsan tahay xog banaanka u soo baxday oo caalamkii oo dhan gilgishay saacadihii hadda la soo dhaafay ayaynu bal muuqaalka yaga aynu bal ku fiirin doonaa maxaa masaajidka lagu sameynayaa maxay Israa'iil dabacsan tahay xogtan yaa daabacay maxaa ku qoran iyo arrimaha waa dul istaagaya waxaan sidoo kale aan rabaa muuqaalka inaan bal ku fiiriyo wararkii ugu dambeeyay ee Iiraan iyo Mareykanka wararkii xalay lagu qaaday dowladda Iiraan maxay Iiraan kaga jawaabtay waa maxay hadallada hanjabaadda ah ee hogaamiyaha dalka Iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan iyo waliba ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iiraan ka soo baxaya maxay tahay bal arrintaana waynu fiirin doonaa waxaan sidoo kale aynu fiirin doonaa wafdigii Iiraan ee u aanbabaxay dalka Qatar ee maalintii shalay ahayd oo wada hadalka uga qayb gali lahaa oo si degdeg ah dalkoodii dib ugu laabtay maadaama xaaladdu ay hadda sii adkaanayso iyo waliba xaalad cakiran oo laga dareemayo Mareykanka iyo Iiraanna waynu fiirin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal meel boo joogtaan iyo soo muuqaalkaygu marka idin soo gaariyaba waa 26 May 2026 waana markii labaad oo maanta hawada aynu ku kulmay intaana muuqaalkayga aan bilaabinin ayaa waxaan doonayaa inaan fursadan muhiimka ah aan uga faa'iideysto inaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ahba aan ku iraahdo ciideeda kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo كل عام وأنتم بخير waxaan idin rajeynayaa saaxiibayaal dhammaantiinba inta hadda daawanaysa iyo inta dib iga daawan doontaba inaad nabad ku ciidaan barwaaqo aad ku ciidaan sanadkan sanadkiisa kalena aynu bashbash iyo barwaaqo dhammaanteen aynu ku gaarno aad ayaad u mahadsantihiin haddii aan bilaabo kadib markii dowladda Mareykanku ay xalay weerar ku qaaday dalka Iiraan iyo goobo muhiim ah oo dowladda Iiraan ay leedahay sida waliba dekada Bandar Abbas ayaa waxa dhanka dowladda Iiraan ka soo baxaya hanjabaado kala duwan oo waliba ka imaanaya laamaha dowladda ee markaasi kala duwan dhinacyo kala duwan oo dowladda Iiraan ah ayaa waxa ka imaanaya hanjabaado culus oo markaasi dhammaantoodba ku wajahan dowladda Mareykanka qaybta ugu horeysa ama qodobka ugu horeeya hanjabaadahan haddii aynu fiirino wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa sheegtay in dowladda Mareykanku aysan wax caqiida aysan lahayn aysan ballan gelinin mar walbana ay ballanta ay ka baxayso wax diin ah iyo wax caqiida ah oo ay leeyihiin aysan markaasi aysan jirin waxay wasaaraddu ay sheegtay in ayada wada hadal u socdo waliba wada hadal xasaasi ah oo arrimo nabadeed laga hadlayo ay duulaha ku soo qaaday dalka Iiraan waana arrin waxay sheegtay muujinaysa inaysan wax faith ah iyo wax caqiida ah iyo wax iimaan ah oo ay Mareykanku ay leeyihiin aysan jirin intaa waxay ku dartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan in Mareykanku ay qaadi doonaan mas'uuliyadda ka dhalata weerarkii xalay ay dalkooda ay ku soo qaadeen wax walba oo weerarkaasi ka dhashay dhibaato walba oo ka timaada cidda mas'uuliyadda qaadaysa oo la weydiinayo waa dowladda Mareykanka ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan marka taasi waa dhanka wasaaradda arrimaha dibadda dhanka kale markii la fiiriyo ciidamada ilaalada kacaanka ee islaamiga ah ee dalka Iiraan ee magacooda markii la soo gaabiyo loo yaqaano IRGC ayaa waxay wacad ku mareen inay ka argoosan doonaan dowladda Mareykanka weerarkii xalay ay Mareykanku ku soo qaadeen ay uga jawaabi doonaan weerar kale oo xoog leh ay ciidamada Iiraan ay sheegeen waxay taasi ay ku dareen ciidanka Iiraan oo ay ku dhawaaqeen inay xaq u leeyihiin inay tallaabo ay ka qaadaan ama ay tallaabo adag kaga jawaabaan weerarkii xadgudubka ahaa ee xalay markaasi lagu soo qaaday marka ciidamada Iiraanna hadalka ayaa ka soo baxaya ma aysan sheeginin ciidamada Iiraan tallaabada ay qaadayaan nooca ay noqon doonto waxa ay weerari doonaan goorta ay weerari doonaan macluumaadka nooca ay dabcan macluumaad sheegi karayana ma ahan waa macluumaad military xilli xasaasi ah oo colaadeedna dabcan Iiraan way ku jirtaa laakiin si guud waxay soo direen maxaa la yiraahdaa fariin ay waliba wacad ku marayaan inay ka aarsan doonaan ciidamada maxaa la yiraahdaa Mareykanka
isla markaasna ay tallaabo adag ay ka qaadi doonaan dhanka saddexaad ee iiraan markii la fiiriyo hogaamiyaha dowladda iiraan ayatollah mujtaba khameyni ayaa isaguna wuxuu sheegay ama uu digniin adag uu dhankiisa u diray saldhigyada ay dowladda maraykanku ku leeyihiin bariga dhexe wuxuu sheegay hogaamiyahoodu in hadda wixii ka dambeeya saldhigyada ay maraykanku ku leeyihiin bariga dhexe inaysan ammaan ahayn oo xilli walba ay weerari karto dowladda iiraan digniinta loo jeediyey saldhigyada gobolka ayaa waxay noqonaysaa in ay iiraan xilli walba ay weerari karto hogaamiyaha iiraanna uu markaasi soo saaray digniintii ugu cuslayd ayaa la oran karayaa intii ay hadda xabad joojintu ay markaasi ay socotay lama yaqaano marka goorta ay maraykanku dabcan ay weerari doonto saldhigyadan ay digniinta hadda u dirayaan iyo nooca weerarkooda uu noqon doono laakiin waa hanjabaad runtii aad iyo aad u culus ayaa la oran karaya hadalka ka soo yeeray mujtaba khameyni ayaa wuxuu sidoo kale uu ku sheegay in dowladaha khaliijku aysan wixii hadda ka dambeeya aysan haysan dooninin gaashaan difaaca ama protection aysan haysan dooninin marka xataa dhanka dowladaha khaliijka saameyn ayay ku yeelanaysaa oo saldhigyadii difaacayay ayuu leeyahay wixii hadda ka dambeeya cid idin difaacda ma heli doontaan oo cagta ayaynu marin doonaa marka dowladda iiraan sidaas ayaa waxaa uga soo baxaya hanjabaado kala duwan wasaaradda arrimaha dibadda ciidamada ilaalada kacaanka iyo weliba hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalka iiraan dhammaantoodba waxay soo dirayaan hanjabaado ka dhan ah dalka maraykanka lamana yaqaano tallaabada dhabta ah oo dowladda iiraan ay qaadi doonto iyo weliba goorta ay qaadi doonto laakiin waxaa muuqata inay iiraan markaani ay u dhigayso qaab in arrintaasi ay dagaal uga jawaabi doonto bal jawaabta ay ka bixisa iiraan waynu arki doonaa dhanka kale wafdigii dowladda iiraan ay shalay u dirtay magaalada dooxa ee dalka qatar ee halkaasi uga qaybgelayay wadahadalka maraykanka iyo iiraan u dhexeeya ayaa si deg deg ah maanta dib ugu soo laabtay magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan dib ayaynu usoo laabteen ayaa la yidhi warkan oo hadda deg deg ah ama breaking news ah oo ay qorayso warbaahinta aljazeera ayadoo ka soo qaadanaysa warbaahimada kale ee localka ah ee dalka iiraan ayaysan ku xusnayn sababta ay usoo laabteen wadahadalkiiba usoo dhammaaday durbaba mise dowladooda ayaa ku qasabtay inay dib usoo laabtaan maadaama xalay iiraan la weeraray lama caddayn karayo xogtana kuma ay jirto laakiin waa arrin loo fasiri karayo in weerarkii xalay maraykanku ay geysteen markiiba ay isbeddel xoog leh ay ku yeelatay wadahadaladii maraykanka iyo iiraan u dhexeeyey marka xaaladdu way soo cakirmaysaa iiraanaha jabaada ayaa ka soo baxaya wafdigooda dib ayay ula soo laabteen waxaa sidoo kale hadda soo baxaya xog kaleo iyaduna la yaab leh oo ka soo baxaysa warbaahinada gudaha dalka maraykanka qaar ka mida oo sheegaya in dowladda maraykanku ay dib u bilaabi doonto qorshihii hadda ka hor intay bilowday ay joojisay ee ahaa inay xoog ku furi doonta marinka hormuus iyo in isku socodka marinka ay soo celin doonaan oo ayagu ay waardiyeyn doonaan maraakiibta markaasi maraysa marinka hormuus waa arrintii ay ka tanaasuleen oo ay dib uga laabteen ayaa hadda waxaa la sheegayaa inay maraykanku haddana ay waddadaasi ay dib ugu laabteen waana arrin kale oo ayaduna muujinaysa saansaan colaadeed iyo in maraykanku ay markaani qaadeen waddadii colaadda iyo dagaalka oo ay ka soo wecdeen dhankaas iyo wadahadalkii sidii aynu muuqaalka iyagii hore aynu ku sheegnay ee falanqaynta ahaa waxaa muuqata in maraykanku ay dib uga laabanayaan wadahadalka oo ay u arkaan qodobada ka soo baxaya natiijada maxaa la yidhahdaa MOU-ga inuusan ahayn mid maraykanka guul ah oo markaasi uu guuldarro ugu yahay oo maraykanku ay ku kala qaybsameen xilligaana Trump uu u muuqdo inuu doonayo inuu dib uga laabto haddii marka dib looga laabanayo wadahadalka halkan la aadayo dabcan waa opposite-ka iyo colaadda laakiin bal wixii ka soo baxa oo warara muuqaaladeena iyo wararkeena ayaynu bal ku soo gudbin doonaa haddii aan la yidhaahdo qodobka ugu dambeeya haddii aynu fiirino warbaahinta magaceeda la yidhaahdo Middle East Eye
ayaa waxay daabacday warbixin runtii la yaab leh oo ku saabsan masaajidka barakaysan ee al aqsa iyo qorshe hoose oo halisa oo Israa'iil ay dabacsan tahay. haddaba warbixintan la soo dusiyey ama nooca leegtiga la yiraahdo oo hoos laga soo dusiyey waxay sheegaysaa waa maxay nuxurkeeda ayaan fiirinayaa. qodobka ugu horeeya warbixintan waxay sheegaysaa in masaajidka al aqsa maamulka gacanta ku haya ee muslimka ah gacantooda laga saari doono isla markaasna lagu wareejin doono maamul kale oo Israa'iil ay samaysatay. maamulka hadda gacanta ku haya masaajidka waa maamul ama waa guddi ay taageerto dowladda Jordan. marka waxaa la leeyahay maamulkaas ayaa gacantooda laga saarayaa maamul kale oo Israa'iil ay leedahay ayaana la doonayaa in lagu wareejiyo. qodobka labaad ayaynu ku arki doonaa. marka qodobka ugu horeeya waa in Israa'iil isbedel ku samayso maamulka ama guddiga maamula masaajidka barakaysan ee al aqsa. qodobka labaad oo warbixintan ay sheegayso ayaa waxay tahay in Israa'iil ay doonayso inay dhisto maamul cusub oo masaajidkani gacanta ku haya isla markaasna masaajidka ka dhigi doona goob dalxiis ah oo ay u siman yihiin muslimka, yuhuudda iyo weliba kirishtanka. ma arkaysaa masaajidkii barakaysanaa qibladii hore dadka muslimka ayaa waxaa loo bedelayaa baa la yidhi goob dalxiisa oo ay u siman yihiin yuhuudda iyo kirishtanka iyo muslimka. subxaan allahi casiiza caza wajal. marka waa arrin runtii musiibo ku ah dadka muslimka ah iyo diinteennaba arrin musiibo ku ah. ilaahay baan ka magangalay inaynu soo gaarno musiibada noocaaya ama inaynu aragno musiibada noocaaya oo masaajidka barakaysan iyo ummadda muslimka ah in ihaano noocaaya lagu sameeyo. ilaahay baan ka magangelaynaa. marka qodobkan waa qodobka labaad. qodobka saddexaad ee xogtan ku qoran ayaa wuxuu yahay in qorshaha cusbe Israa'iil ay doonaysaa uu yahay in access badan la siiyo, in awood badan yuhuudda loo siiyo masaajidka al aqsa oo ay xilligii doonaan ku tukan karaan oo waxay doonaan ay ku samayn karayaan isla markaasna sidii ay doonaan ay ka yeeli karayaan. xilli masaajidka hadda maamulka iyo nidaamka hadda gacanta ku haya dabcan aan loo ogolayn, xaraamna ay tahay in masaajidka ay galaan yuhuud iyo kirishtanba looma ogola. diin ahaanna waa arrin qaldan. marka waxaa la yidhi albaabada loo furayaa. qorshuhuna wuxuu yahay in full access la siiyo yuhuudda inay weliba ku tukan karaan wixii ay doonaan ay ku samayn karayaan. horena waxaynu u aragnay in la yiriba waxaa laga dhigi doonaa goob dalxiisa oo yuhuudda iyo kirishtanka afartan dhinac isaga timaaday ay ku xaroon doonaan. ma arkaysaa marka qorshahaas ilaa iyo saddexda qodob ka kooban ayuu riboodkanu sheegayaa in Israa'iil ay xilligani ay ka shaqaynayso oo gacanta ku hayso. Israa'iil kaliya baan dowladda Mareykanka iyo Israa'iil ayaa ka shaqaynaya. waxaa la yidhi waxaa qorshahaasi gacanta ku haya oo maamulaya waa wiilka gabadha Donald J. Trump Kushner la yidhaahdo. ninkaas ayaa gacanta ku haya ayaa la yidhi qorshahan oo ka shaqaynaya. waa wiilka dhalinyarada ah ee Trump gabadhiisa qaba ee hadda wadahadalka Iiraan iyo Mareykanka u qaabilsanaa ahna nin yuhuuda asalkiisa. waana mid ka mid a shakhsiyaadka ugu xunba ee hadda Trump la socda. muslimka ugu neceb ugu cunsurisan ugu saqarjaansan baa la oran karayaaba siyaasadda Mareykanka weligiis meel ka soo galay maahan. waa nin ganacsada. marka ninkaas ayaa qorshahan masuul ka ah oo hormuud ka ah lamana garanayaa la yidhi dee mandate iyo maxaa la yidhaahdaa iyo awood dowladeed xataa uu hayo xataa xil ma hayo. marka isagaas ayaa u qaabilsan baa la yidhi Mareykanka iyo Israa'iil in qorshahan markaa la fuliyo. taasoo macnaheedu ay tahay lacagta lagu fulinayo iyo waxaayo dhan Mareykanka iyo Trump ayaa ka shaqaynaya oo bixinaya. waxay noqon doontaa lama yaqaano laakiin waxaana hubaa in sida hadda loo dhigaya aysan u fududayn haddii ay isku dayaanna in halkaasi musiibo aan la arag ay ka dhici doonto. dagaal aan la arag inuu ka dhici doono ayaan aaminsanaa. muddooyinka hadda lasoo dhaafayna dad badan ayaa ka digaya qorshaha. intii colaaddu hadda ay socotay 40 maalmood ayaa waxaa soo baxday xog sheegaysay in Israa'iil ay qorsheynaysay in masaajidka dumiso oo ay tiraahdo gantaaladii Iiraan baa ku dhacay. qorshe noocaas isku day ah ayaa jiray oo banaanka u soo baxay. markii la ogaadayna dib ayay oga laabteen. isku daygan hadda muxuu noqon doonaa
dowladaha muslimka maxay kaga jawaabi doonaan xaaladan maxay noqon doontaa dadka aagaas degan ee muslimka ah oo ilaa iyo 500 oo malyan lagu qiyaaso dadka muslimka dhulka degan from turkiga ilaa iyo meesha ugu dambaysa Pakistan dhulka dadka degan marka la isku dardaro ilaa iyo 500 oo malyan oo muslim oo aan loo dhaxayn ba degan looma dhaxeeyo markii aynu turkiga ka soo bilowno oo maxaa la yiraahdaa lubnaan aynu nimaano aynu syria nimaano oo dhankan kale xataa la soo aado masar jordan ilaa iyo sacuudiga ilaa iyo kor khaliijka ilaa iyo iiraan ilaa iyo afghanistan ilaa iyo pakistan 500 oo malyan oo muslim ah oo isku dhegan ayaa degan lama garanay marka sida arrinta markii ay shaqayso ay bariga dhexe oo dhan iyo dhulkaas uu amni u noqon doono lama garanayo waana arrin aad looga digaba muddooyinka hadda la soo dhaafay xataa sirdoonka maraykanka qaar badan oo ka mid ah aad ayay uga digeen in masaajidkaas al-aqsa in faragelin lagu sameeyo isbeddel lagu sameeyo taasoo la ogyahay inay ka dhalanayso colaad weyn oo aan la debi karinin kooxo badan oo haddadan indhaha ka fiirsanaya colaadaha ka jirana laga baqay in colaadahan ay ku soo biiraan marka wixii ka soo bax waynu arki doonaa xogtaas waa xog maanta si weyn loo wado weli markaynu ka hadlayno dadka muslimka ah oo ku jira maalmihii barakaysnaa ee carafa ayaa xogtaasi la shaaciyey si weyn ayayna hadda ugu faaftay barta X-ka iyo meelaha kale oo bulshada ay markaasi ay ku kulmaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته